cabdirashiid ducaale waa madaxa sharikadda dahabshiil oo ah xawaalad caalami ah dirista lacagga sharikadda xaruntooduna ay tahay Dubai. aabihii ayaa asaasay ganacsiga horaantii 1970-nadii. waxa uu ahaa nin baayac mushtar caadi ah, markii dambena u wareegay lacagta dadku ay dirayaan Soomaalida degan dalka dibaddiisa oo markaa raadinayay lacag ay u diraan dalkooda. cabdirashiid ducaale waa 40 jir, isagaana gacanta ku haya sharikadda. dahabshiil waa sharikad ka howlgasha 24,000 oo meelood 126 waddan, waxaana u shaqeeyay ilaa 2,000 oo qof. sharikadda dakhligeeda waxaa lagu qiyaasay 2016 1 bilyan oo doolarka waddanka Maraykanka. sharikadaha dahabshiil waxaa kale oo ay leeyihiin howlgal baanan ganacsi dalka Soomaaliya, waxaanay leeyihiin 95% warisgaarsiinta Somtel. cabdirashiid ducaale hanti waxa uu ku leeyahay London, Dubai iyo Hargeysa. cabdirasaaq iidow waxa uu isaguna yahay nin aad uga lacagaystay warisgaarsiinta, isagaa asaasay gacantana ku haya inta badanna leh sharikadda Nation Link ee warisgaarsiinta. waxay ka mid tahay kuwa ugu waaweyn ee ka howlgala Soomaaliya. iidow oo badi ahaan degan Dubai waxa uu sameeyey Nation Link 1997. sharikaddu waxay ka shaqaysaa moobaylada, telefoonada caadiga, internetka iyo satellite-ka moobaylka, waxaana isticmaala dad lagu qiyaasay 700,000. maxamed abshir cabdi waxa uu ka xoolaystay ganacsiga waxyaabaha badda ka soo baxa. sharikad kalluumaysiga ayuu ku leeyahay Xaafuun, waxaanu sameeyey 1992. waxa uu ku lug leeyahay dhoofidda iyo qaybiska waxyaabaha badda ka soo baxa, waxaana ka mid ah lobisaka, kalluunka la qaboojiyo iyo kala qallajiyo ee libaax-badeedka. dakhliga sharikadiisa waxaa lagu qiyaasay 10 malyan oo doolarka waddanka Maraykanka. ismaaciil axmed waxa uu asaasay Well Remit oo saldhigeedu uu yahay magaalada London, kuna shaqaysa online oo lacagta lagu kala gudbiyo si dadku saaxiibadood iyo qoysaskoodaba ay ugu diri karaan lacagta dalalka ay joogaan. 2015 sharikaddu waxa ay samaysay 100 milyan oo doolar, waxaana markaa loo wareejiyey magaca teknolojiga TCV iyo Axel Partners. axmed isagaa ka madaxa sharikadda. aamine mooga xirsi waa gabadh qoyskeedu ay ahaayeen reer miyi markii ay ka yimaadeen Soomaaliya oo ay degeen Bungoma oo ku taala galbeedka dalka Kenya, halkaasoo ay ku dhalatay. markii ay koraysay waxa ay ka shaqaynaysay dukaan hooyadeed ay lahayd. markii dambena waxa ay degeen dalka Uganda, halkaasoo ganacsi kale ay ka bilaabeen, waxaana ka mid ahaa sibidhka. lacag aad iyo aad u badan ayay samaysay, waxaanay leedahay dhul badan. aamine mooga xirsi waa 64 jir, dhul aad iyo aad u qaaliyana waxa ay ku leedahay Uganda. waxaa ka mid ah meel weyn oo laga dukaansado oo moola oo ku taala Kampala oo la yidhaahdo Oasis. waxay leedahay hodheel caana oo la yidhaahdo Lebanon Courts. waxaa kaloo leedahay sharikad sonkorta samaysa oo warshadeeda la yidhaahdo Atiak Sugar Factory. waxaa kaloo ay samaynaysaa warshad dhinaca sonkorta ah waqooyiga dalka Uganda oo lagu qiyaasay inay ku kacayso 120 milyan.